صاحبي ان قلب wanaagsan xogaa waa jam iyo waxbaan galay waxaan rabay inaan hore newska markuu soo baxay aan markaba aan soo sharxo laakiin waxaan moodaa in newska iga hor dhacay CPI-da Mareykanka year of a year waxay kortay 2.9% waxaana laga filayay 2.9 waxayna ahayd 2.7 marka intii la filayay haddii ay soo baxday waa war lahayaa xiisa male already suuqu waa like CPI waa korodhay waxay dhigaysaa inay kor aado sorry maadaama intii la filayay uun ay laakiin korodhay DXY waxay u saameynaysaa inay hoos aado haddaynu eegno DXY ha hoos bay aad ugu daadatay laakiin waxaan u malaynayaa waxani waa baqa carar I don't think in CPI-du ay saa kusoo yaraanayso haddaynu eegno core CPI-da oo kale 0.3 waa 0.3 waa 0.2 buu noqday I think tana aad u saameynaysa core CPI-du ma korin waxaan koray ee batay waa energy-ga iyo tamarta waa CPI-da caadiga ah laakiin core CPI-ga oo ah dhammaan isbeddelka ku yimaada ama sicir barar ku dhaca qiimayaasha macaamiisha marka laga reebo tamarta iyo cunnada marka I think kana very important ah marka haddaynu eegno consumer indexka inoo soo baxay waxaynu arki karnaa fiiri waxaan rabaa inaan arko korkan rabaa inaan eego consumer price-ku waxa uu kor u kacay 0.4% ilaa 0.2 isagoo noqday marka 2.9% 12 ugu dambeysay the index energy-gu kor buu u kacay 2.6% accountable monthly items okay waxa meesha qaadiyay waa energy-guna wuu aad isu bedbedelaa marka the index for less item waa 0.2 kana muhiima marka core CPI waa kan waa less food and energy waa kuwa aan food iyo energy ku jirin cunnada iyo tamarta aanay ku jirin 0.3 waa laakiin 0.2 buu noqday and all items rose marka u muhiimsan waa intaan dhammaan alaabuhu waxa ay kordheen 2.9% 12 bilood marka loo eego kadib markii ay kortay 2.7% bishii ka horreysay okay dhammaan kuwa aanay ku jirin cunnada iyo tamarta waxay kor u kaceen 3.2% marka loo eego energy-ga inuu kacay okay the energy index decreased 0.8% the food index increased marka cunnooyinka iyo ka qayb qaata inta u badan waxaan dhihi karnaa marka warkani waa war u fiican in intersetka lasoo jari doono taasna marka waxay ka dhigaysaa DXY in hoos u daadato marka hadda kolley meel area lasoo nadiifin lahaa way joogtaa marka waxaan dhihi doonaa talow halkan ma soo garaaci doontaa galabta meel kaleba warkeeda joogtay DXY luga ma soo garaaci doontaa haddii kaa soo garaacdaan imbalansigan ma imaan doontaa ilaa iyo gaabkan areadan oo kale ma imaan areada ma imaan doontaa baynu isweydiinayna okay taa beddelkeeda GU oo kale kor bay aaday GB boonka CPI-diisu fiir way kacday boonka CPI-diisa saaka hoos u dhacday sorry okay boonka sel baan ka filaynay 3 core CPI-da 3.2 hoos buu usoo dhacay kan hoos u dhacay laakiin iyadoo hoos u dhacday boonku muxuu kor u aaday waayo DXY baa kasii daciifsanaatay marka boonku waa daciif DXY waa daciif ama waa sel si kale haddaynu eegno marka halkan oo kale qiyaamo badan baa ku jiri karta maadaama boonku uu daciif yahay inuu waxaan manipulation soo qaatay kadibna imbalansiga yimi kanalka OB-ga yimi halka uu kasoo daato suuqu silkii boonka uu halka ka bilowdo laakiin taa waxay fiicnaan lahayd marka DXY-da CPI-deedu ay korodho marka I hope in aadan ku dawaqin marka faraha badan aan sheegay yuuradoo kale haddaa eegno waxaad moodaa in yuuradu tirarkaasoo tirarkii shalay BBI-da aan ku qaatay hadda hayn lahaa ilaa maanta fiiri maadaama BBI-da hoos u dhacday aan dhihi lahaa CPI-dana hoos bay u dhici doonta maadaama labada sicir bararka ay muujiyaan ama amin cabiraan boqol bi bay noqon lahayd laakiin who knows shan laatan ka badan ka qaatay marka saaxiib yaar hadda waa very delicate I don't think in DXY ay hoosta usii socon karto unless aan ka arko tusaale euro dollar kale waxaan ku qaadan lahaa inay soo noqoto candle bearish ku xidhmo candleka kale uu okay aan sawiro euro dollar sidan keliyaan ku qaadan karaa in ay samayso candlekaas waa bearish kanna waa bearish and then intaa kadib aynay bullish ii samayso sida and then intriga marka halka aan ka galo wiga hoose uu isoo qaato isagoo areadan ixtiraamaya and then candlekaas soo ku baxo onimble intri marka halka uga helo sida kaliya ku qaadan karaa laakiin si kale adhooti kale ku qaadan karo 30 minute iyo 1 hour oo kale dhacdada insha Allah taala waa si akhrin doona Facebook-geena Haglaba Academy ku soo qori doona wixii dambe update ah
waxaan leeyahay fadlan aad ha la isu ilaaliyo. January baa lagu jiraa, wixii ka dambeeya inoo fiicnaan doonaa suuqu insha Allah bishaas markay dhammaato. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.